الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أخيات الشرفت له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامجكني تصالح النولشة إن كان لسه عن سومالي كيبل ما أنت وحنا كجاه هذينا مامل فسادي محل جد حلا. رهان مامل فسادي مركان لنا هاي والدولة هي شركات هي سكولير هي وحكة سوء ماملة يعني جاه هذايا. daba dawladdu waa meesha u sarreysa oo markasta marka laga hadlayo nolosha bini aadamku wuxuu isku darsaday dawladdaas ugu xoog badan saasay marka dawladdu markasta ay madax ay kor imaanaysaa runahan marka la fiiriyo qawaaniinta caalamka iyo sida loo guto iyo marka la gudan waayo dhibta ka timaada marka la gudan waayo shaqadaas la isku ogaa la gudan waayo ama shaqadii dadku ay ka sugayeen aad gudan weydo adigoo mas'uul weyn ah oo mas'uul dawladeed gaar ahaan ah maxaa ka dhalan kara afar shay ayaa ka dhalan kara qodobka koobaad ee ka dhalan kara waxa weeye waa ku xadgudub shuruucda lagu xadgudbo lagu xadgudbo oo mas'ala khatar ah waxa ka dhalanaya marka ku xadgudub shuruucda lagu xadgudbo waxa isla markaa la socda ka gaabin gudashada waajibka laga gaabsho ayaa isla markaas la socota oo waajibaadkii la rabay danta guud inuu adeegaan la gudan waayo qodobka labaad ee imaanaya markii waajibaadka ummaddu idaaradu xumaato oo fasaad dhaco waxa ka dhalanaya qodobkiisa labaad waxa weeye ku xadgudubka shaqada qaabka shaqada sharafta shaqada ku xadgudubkeeda weeye oo sharaftii la rabay si tafatiran in loo guto looma gudanayo meel baa laga dhacayaa markaas dambi waxa laga gelayaa shaqadii baa dambi laga gelayaa saadaradeed waxa shaqada dambiga laga galay isla markaa garab socota oo dambi laga gelayaa qiyamkii ummaddu rumaysnayd oo shaqada ahayd amaana ahayd in la guto qiyamkiina dambi ayaa laga gelayaa waxa dambi laga gelayaa diintii oo dadkeena Soomaali ay wada rumaysan yihiin oo la isku ogaa in laga run sheego waxa la qabanayana dambi baa laga galayaa marka loo yimaado marka qiyamkaas noocaasa oo shaqada sharafteeda meel laga dhacayo waxaan aad u xusuustaa nin macallin weyn oo professor oo dalalka reer galbeedka ku nool ayaa maalin wuxuu yimid dalalka Scandinavian-ka mid kamid ah oo Finland ayuu yimid dadku waxay aad u xiiseynayeen nin mustawaha leh oo siyaaso ka sheekaynaya iyo dalka si loo badbaadin lahaa bay aad ugu faraxsanaayeen waa la soo dhaweeyay waxa loo qabtay munaasabo weyn wax walba la isugu dubariday dadkoo dhan baa isu yimid ninkii hadalkii uu bilaabay si fiican hadalkii markuu u dhacay ayaa ninkii shirka maamulayay wuxuu yiri professorow hadda salaadii duhur baa soo gashay salaadii duhurna waa inaan tukano markaasaan barnaamijka u soo noqonaynaa buu professorka marka wuxuu yiri war waxa inaga dhaxeeya salaadu kuma jirtee hawsha inoo wada buu taban waa dareemi kartaa marka dad Soomaali ah oo leeyahay salaad baa soo gashay aan tukano ninkii dhanaa oo professorka ahaa ee libaaxa ahaa oo laga sugaayay inuu ummadan hogaamiyo ummadda dhaqankeeda meesha uu ka taagan yahay daraf buu ka taagan yahay inuu waxba kolka diinta nacabiha sharti maaha inuu xumaan ula jeedo sharti maaha laakiin marka la samaynayo shirarka adoo Soomaaliya jooga marka la samaynayo salaad waxay ku jirtaa qaybta shirarka la iska ilaaliyo ku jirtaayo waxa la leeyahay waqtiga salaadii dadku tukanayaan ha laga soo hormariyo dib ha looga dhigo professorka markuu waxa dhici karta waxaasi ugu jirtaan oo si toos ah wuxuu yiri war salaadu isuma keen jirtee hawsha isugu keen jirta ee kale inoo wada buuri shirkii meeshaas ku burburay ma la isku soo noqonin oo waxa la ninkan aan rabno inuu dalka inooga warramo oo siyaasad inooga warramo nim ama salaadba tukanin miyaa baa la gaarsiiyay halkaas ku burburay waxaan u keenayaa mithaalkaas يعني أنت أصغر واحد أركيسا ميل أي فرديدو شن روح أو رير يوروبيانا أو أي فرديدو بقول يكون تنلا بقول الصومالية
markaasaa dhammaan waxaa la isku qasbayaa maalan in afka lagu hadlo markaasaa dadkii hadli lahaa af ingiriiskii ma wada yaqaanaan say u hadlaan marka ma yaqaanaan yani fiiri dadka qiyamkooda iyo dhaqankooda in la ilaaliyo ayaa qodobka saddexaad ee ka dhalanaya waxa weeye wuxuu ku saabsan yahay danta guud oo la hoosgeeyo danta gaarka ah oo dadkii mas-uuliyiinta ahaa meesha ay ka qaban lahaayeen dantii guud ay number 1 noqon lahayd tooda gaarka ana ay gadaal ay aadi lahayd maya tanaa tan loo addoomiyo la hoos keenay taasina waxay ka mid tahay waxyaalaha dhulkeenna burburiyey oo maxaa iga galay hawsha la yidhaahdo nin boqorahoo u yeedhay oo inuu magaalo dhisan rabay wuxuu ha laygala taliyo buu wuxuu yidhi qaab waxaan rabaa injineer nadiifa oo si fiican wax u yaqaana yuu yidhi ha la igu yeero nin khabiira oo la tashado ha la igu yeero markaasaa waxaa loogu yeedhay nin khabiir ahoo weyn baa loogu yeedhay markaasuu ila soo tali buu oo ii naseexeeyo waxaan qaban lahaa markaasaa wuxuu yidhi hawsha aad hayso wax duminaya waa inaad tidhaahdo maxaa iga galay wax iga galay ma jiro hawshaydii ma aha marka dawladdaada iyo hawshaada markay dumayso iyo waxaad dhisaysa waxaad qabanayso oo dhan waa markaad tidhaahdid dan guud ood adigu haysay ama adii lagaa rabay maxaa iga galay ayay noqonaysaa saa daraaddeed qodobka afraad ee markii maamulku xumaado fasaadka dhacaya qodobkiisa afraad waxa weeye ku takrifal awoodeed waaye yani xooggii adiga aad haysay iyo maamulkii aad haysay ood adigu u adeegsatay si adiga gaar ku ah meeshii danta guud oo dhan intaa isu keento adigu aad hogaamin lahayd taasina waxaa weeye waa ceeb aad iyo aad u weyn oo run ahaan waxay tusaale u tahay ruuxu markii xoolihii uu maamulayay iyo awooddiisii uu si gaara u adeegsado ee dhibta dhacaysa ay daliil u tahay maxaa ka dhalaya markii waxaasi dhacaan afartaa qodob ee sheegnay hadday dhacaan maxaa dhalanaya dhowr qodob oo kale ayaan si gaaban u sheegi doonaa waxaa dhalanaya horumarkii dalka la rabay hoos buu aadayaayo ma soconayo waxay dawladdu aysan awood u yeelan doonin inay dadka u adeegto meeshii la rabay nadaafadooda iyo noloshooda inay ka shaqaysa awood ma u yeelanayso leanno maamulkii baa fasaasan waxayna awood u yeelanayna dawladdaasi faqriga inay la dirirtana awood uma yeelanayso oo dadkii la dirir lahaa waa kuwan dantii guud danta gaarka ah ee hoosgeeyey waxaa ka dhalanaya qodobka afraad dantii caamka ahayd ee ummadda difaacoodii iyo beertoodii iyo qaabkay wax usoo habayn lahaayeen oo dhan dantii guud ee ka wada dhexaysayna hoos bay aadaysaa way baaba'aysaa shanaad waxay abuuraysaa tani mujtamac isnacab bay abuuraysaa maxaa jira markii dulmi dhaco wadulmu dulumaatun yowma alqiyaama adduunyadana lacnad buu noqonayaa markuu dulmi dhaco dadku way isnacayaan maxaa jira xaqii aan lahaa markaan anigu waayo ruuxi ii diiday anigu waan la coloobayaa dulmigaa marka dhacay wuxuu keenayaa wadaninimadii inuu baabiyey dowladnimadii baa la nacay wadanimadii baa la nacay markii dalkeennu 30 sano ka hor uu burburka weyn ku socday si caadi ah ayaa buruugtana loo biliqaysan jiray iskuulaadka iyo wax dhex yaal la biliqaysan jiray maxaa jira dadku inay waxaanay ka dhaxeeyaan waxoodii yahay maysan rumaysnayn maxaa jira si dulmiya ayay u arkayeen in loo adeegsanayay marka dawladdu markay iyo maamulku uu fasaadka waardiye ka hayo oo fasaadku uu noqdo waxa la dhaqaalaysanayo oo wanaagsan oo lagu faraxsan yahay markuu noqdo dadkii mas'uuliyiinta uu noqdo dadkii ay la noolaayeen way la coloobayaan saa daraaddeed waxaa weeye dembigii laga galay ummadda qayb weyn ayay halkaasi ka noqonaysaa qodobka lixaad waxaa weeye waxaa dhumaya ammaanadii wixii adiga aad haysay ruux walba wuxuu hayay ayaa dhumaya kolkuu maamulka guud fasaado saa daraaddeed si sax ah looma maamuli karo mashaariicda oo lama ilaalin karo xoolahan iyo mas'uuliyaddii weynada ruux hayay mar hadduu ku takrifalo kuwii ka hooseeyana tuugun bay noqonayaanoo markii la weydiiyey Singapore ninkii madaxda u ahaa ee waaga dhow dhiman jiray ayaa waxaa la yidhi sidee Singapore tan yarta ay ku gaadhay inay noqoto dalalka ugu dhaqaale fiican xagga corruption-kana ugu yar baa la weydiiyey wuxuu yidhi markaan dadka xisaabaynay oon qawaaniinta shuruucda dejinaynay waxaan goosanay buu yidhi inaan xisaabta kor ka soo bilowno madaxweynaha ilaa wasaaradda
oo hoos loo soo dejiyo saa daraadeed markuu arko ruuxii miskiinka ah ee albaabka furaya wasaaradda markuu arko wasiirkiisii oo la xisaabayo isagu shaqada si sax ayuu u qabanayaa sidaas ayaan ku gaarnay buu dhahay waxaa dhalanaya qodobka 7 fasaadka ka dhalanaya waxaa ka mid ah si dhib yar inay mas'uuliyiintu dadkay rabaan shaqada u siiyaan kan ay ka leexiyaan kay rabaan ay meesha keenaan markaas waxaa dhumaya dadkii wax yaqaanay oo mustawaha sare lahaa ayaa meeshii dhumaya markaasay dawladdu si dhib yar u dumaysaa shaqadii oo dhanna way dumaysaa ibn khaldun allahu naxariistay markuu ka sheekeynayay haddii si qalad loo doorto dad oo dadkii kafaa'ada lahaa oo levelka ugu sarreeyay joog inta laga leexdo kuwa adiga ku nacamleeya aad adigu doorato maxaa dhalanaya wuxuu yiri arintaas waxay la mid tahay intixaar bay la mid tahay sausage ina adu istishay ruux intuu dabin samaystay luqunta la galay oo isdilay bay la mid tahay buu yiri maxaa jira kuwan aan meesha keensatay shaqadooda ugu muhiimsan waxa weeye buu yiri ninka mas'uulkii inuusan wax sax arkin indhaha marka waxay kaga dadayaan buu yiri mara adag ba inta indhaha ka saaraan ayay xaq oo dhan ka qarinayaan buu yiri marka waligii iyo allihii intuu kuwaas u nacamleynaya ag joogaan dariiqo cadaalad lugaha ma saarayo mana arkayo buu yiri waa midda aanu soo taaganahay dawladaha dumo oo dhan bitaana suu ayay islaamku yiraahdaa la taliye xun waaye haddii loo yimaado qodobka 8aad waxay waxaasi keeni populationkii iyo dadweynaheennii markay arkaan nidaamkii weynaa oo fasaaday afartii qodob ee soo sheegnay ay dhaha saaraan dadkii niyada ka xumaanaysa mas'uuliyadoodii bay gabayaan marka mas'uuliyadoodii markay gabaan marka wixii yaree dhisnaana wuu sii dumay waxana ma toosinayaan maajir wuxuu isleeyahay kullee waxa ma qaban kartid maxaa isugu daalinaysaa inta goor aan warkaa maqlay aniga la yiri ama ruux la leeyahay aan dhageystay waxba kama qaban kartid maxaa isugu daalinaysaa xad ma laha laakiin waxa weeye ruuxu wax uuna qaban karin hadduu gooso ma jiro wax walba uu qaban karaa markuu isagoo go'aan leeyahay saa daraadeed fasaadkaas qodobada waaweyn markay dhashaan ayay kuwan sii dhalayaan yani waxa weeye dawladaha waaweyn waxa dumiyana waa kolkuu nidaamku fasaado inaga marka inagii hadda waxay naga soo dumeen baan maanta joognaa oo 4.5 oo aan la fahmayn caalamku aan heshiis ku galay haddii marka fiir aynaan maanta raadinin maamulkeena inaan toosino oo afartaa fasaad ee waaweyn aynaan iska toosinin asalkooda oo waajibkii shaqada iyo shuruucdii aan la ilaalinin oo la ilaalinin sharaftii shaqada iyo ammaanadu lahayd la ilaalinin oo danta guud aan la ilaalinin oo takrifalka danta ummadda xoolahooda iyo baawarkooda lagu takrifalaya aan la joojinin meeshaan ka dhismi lahayn hoos baan sii aadaynaa ummadihii waaweynaa dhisnaabay intani dumisay maxaad marka u malayn umma taaganba 4.54 halin dad ha soo doorta baarlamaan ha ii soo doortay iyo boqol ha ii soo doorata taagan maxaad u malaynaysaa saa daraadeed waxyaalaha dhammaanteed ina saaran waa maxay kolkaan qalad aragno inaan toosino ummadana waxa ilaahay uu u sheegay markay ummaddu wax toosin weydo oo ruuxu maxaa iga gala uu yiraahdo fasaadkaas socda waxa weeye lacnad ilaahay baa ku dhacayso sidii reer bani israa'iil lu'ina alladhina kafaru min bani israa'iila ala lisani daawud wa ciisa ibn maryam dalika bima asaw wa kanu ya'tadun كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون سأدراد ابن عباس مركو آيات دار دقيستي ولا يابي ورهيب بن إسرائيل هدي شقادة حن مركي اسكي علي ويان إلهي ولعنضي إذنكو هداد اسكي قبا ويدانا ويان لذا لعنضي النبي ونسيداس أبو شيغي وحاور يكسو أرورين آيات وحي إنجا فساد إنا توسينا ووحي نجد حاجة مسؤولين تينا هدي خلدمانا وحال ربا in khaladka aan ka toosino oo ninawaad qaldantiina iska daay in la yiraahdo adduunyada dadka ugu xun manihin dad fiican way dadkeenu laakiin hadii madaxda la toosin waayo oo madaxdu xumaato wax hagaagaya ma jiro ilaahayna wuxuu rabaa in madaxda la toosiyo nabiguna wuxuu rabaa in madaxda la toosiyo caalamkuna waxay ku heshiyeen in madax la toosiyo si madax loo toosiyo marka waa in shuruucdiina la dhamaystiro doorasho sax ana markasta waa inaan ku soo celcelino mar walba oo aniga codkaygu uu yahay cod
oo markii aan u baahdo inaan toosiyana xabad aana qaadanina mudaaharaad aan u soo bixi karo oo magaalooyinka in boqolaal kun mudaaharaad u soo bixi karaan oon dhihi kara waxaan hala daayo aad iyo aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh